بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد buugga maanta idinla wadaagi doonaa ciwaankiisu wuxuu yahay The 7 Habits of Highly Effective People. toddoba caadooyin ay leeyihiin dadka waxtarka leh, dadka wax soo saarka leh. qoraaga buugga waa Stephen Covey. buuggan wuxuu ka mid yahay buugaagta caalamka aadka loo iibsado, looguna iibsi badan yahay. buuggan waxaa laga sameeyey in ka badan 5 ilaa 10 milyan ayaa laga sameeyey. qoraaga buugga wuxuu nala wadaagayaa 7 waxyaalood ay leeyihiin, 7 caadood ay leeyihiin dadka waxtarka leh, dadka wax soo saarka leh. 7da qof walba uu doonaya inuu noqdo qof waxtar leh, qof walba doonaya inuu noqdo qof waxtar leh, qof wax soo saar leh, qof saameyn leh. waxaa looga baahan yahay 7dan caadood inuu lahaado. kan ugu horeeya waxa weeyaan ku leeyahay qoraaga buugga, waxaad noqotaa be proactive. noqo qof firfircoon, noqo qof firfircoon. qaado make action, ka mid noqo isbedel samee. leanna sida ogsoonaa nolosheena was the product of valueska waxyaalaha aanu qiimeyno. may wax aanan ahayn wax aad dareemayso. sidaan ogsoonaa nolosheenu waa nataa'ijka ama natiijada go-aanka aanu maanta gaarno nooc xaaladdeeda ku sugannahay iyo duruufteenna haysataa. dadka proactiveka waa dad mas-uuliyaddooda qaada, actionka ay sameynayaan waa mas-uuliyadda waxyaala ay sameynayaan ayay qaadaan. maanta beritoola waxaad noqonayso waxay ku xirantahay maanta waxa aad sameynayso, maanta go-aanka aad gaarayso, valueska ayaad maanta aad leedahay. yani dadka proactiveka waxay yidhaahdaan ama the language ay ku hadlayaan, luqadda ay ku sheekaysanayaan, luqadda ay ku hadlayaan, ereyda ku dhawaaqayaan waxaa ka mid ah inay yidhaahdaan yes waan samayn karayaa, yes waan awoodi karayaa, yes taas waa mas-uuliyaddeeda, yes waan samayn karayaa. taa cagsigeeda dadka reactiveka ah ama dadka caajiska ah inta badan waxay yidhaahdaan may ma samayn karayo, ma awoodi karayo, waqti badan ma haysan karayo, alla lacal hadday sidaa noqon lahayd sidaa waxaasan samayn kari lahaa, ma haysto waqti badan oo igu filan oo aan ku samayn karayo waxyaalaha aan doonayo. لأن قفك عاجز كرياكتيف كأخ والعاجز من اتبع هواه نفسه وتمنى على الله الأمانية. sidoo kale qoraaga buugga wuxuu sawirayaa circle weyn ayuu sawirayaa, wuxuu kullu ku dhex sawirayaa circle yar gudihiisa ayuu ku dhex sawirayaa. circle-ka yar wuxuu ku leeyahay waa circle of influence, waxyaalaha aad awoodi karayso, waxyaalaha aad samayn karayso, waxyaalaha aad qaban karayso. circle-ka weynna waxyaalaha waxa weeyaan aad waxba ka qaban karin. dadka proactiveka inta badan waxay isku dayaan inay wax ka qabtaan circle-ka gudaha ku jira influence-ga ka ayay bilaariyaan. sidoo kaleeto problem walba oo inoo soo food saara waa 3 qaybood. dhibaataan wax ka qaban karno, midaan si toos ah wax uga qaban karin, iyo midaan waxba ka qaban karin. dhaqanka labaad ee laga doonayo qofka waxtarka leh ama qofka saameynta leh waxaa ka mid ah ayuu ku leeyahay begin with the end in the mind. yani ku bilow dhammaadka ku sawir maskaxdaada, yani imagination samey. yani waxaa ognahay shay walba waxaa la sameeyaa 2 jeer. mar waxaa lagu sameeyaa si mental ah, si image ah, si picture ah.
si magaranaysa visualization ah yani si niyadda ayaa lagu sameeyaa magaranaysa marka hore buugu qoraagu wuxuu ku leeyahay sawir maskaxdaada ku sawir meesha u socoto meesha aad doonayso adiga oo jooga adiga oo gaaray dhaqanka saddexaad ee laga doonayo qofka waxtarka leh qofka saameynta leh waxa weeyaan put the first thing first dhig kan ugu horeeya meesha ugu horeysa yani sidii u kala muhiimsan yihiin sida ogsoonnahay xabidka labaad wuxuu ahaa waxaad go'aansatay already meesha u socoto meesha aad doonayso qodobka saddexaad wuxuu leeyahay meesha aad u socoto waxaa lagaa doonayaa siday u kala muhiimsan yihiin yani qorshaha aad xagga ku gaaraysa u kala muhiimsan yihiin u kala hormariso isla markaan waxaa lagaaga baahan yahay inaad la timaado discipline adag in naftaada ka adagta inaad control samayn karto sidoo kale qoraaga buugu wuxuu sawirayaa sawir afargeesood ah wuxuu ku leeyahay wuxuu u kala qaybinayaa arrimaha laba qaybood wuxuu ku leeyahay qayb urgent ah degdeg ah isla markaana muhiim ah qayb aanan degdeg ahayn aanan muhiim ahayn tusaale qaybta degdega ah oo adan muhiimka waxa ka mid ah wixii emergency ku saabsan problem dhacay familygaaga waxyaalo u baahan yahay dhibaato dhacday waxa looga baahan waana muhiim waana degdeg waxa looga baahan yahay sida ugu dhaqsaha badan qabato sidoo kale waxa jirta waxyaalo aanan degdeg ahayn laakiin muhiim ah oo ah yani mustaqbalka waxa doonaysa inaad qorsheyso plan inaad samaysato waxyaalo badan ka hortagto caafimaadkaaga inaad ilaaliso waxyaalo badan inta inaan dhicin ka hortagto sidoo kale waxyaalo waxa jira degdeg ah laakiin aanan muhiim ahayn degdeg ah aanan muhiim ahayn sida telephone soo wacay message ku soo diray mail maybe yani kulan magarasada aanan muhiim ahayn sidoo kale wuxuu leeyahay waxa jirta wax aanan muhiim ahayn aanan degdeg ahayn waxa kamid ah maybe meel aad wici lahayd meelo badan aad wici lahayd yani waqti waxyaalaha waqti isku daysan waqti ku lumiso sida TV aad daawato barnaamijyo aad TV kala socoto filimaan agaar aad socoto waa degdeg xilli bay leeyihiin laakiin dee muhiim ah sidoo kale qodobka afraad ee looga baahan yahay qofku magaranaysa waxtarka saameynta leh waa win-win waa inuu qofku ka fikiro dadka markaa la dhaqmayso waa afar qeybood mid ka mid ah noqonaya inaad ku fikirto xaalad la dhaho win-win aniga waan guuleysanayaa qof kale tan uu guuleysanaya ama qofka kale uu guuleysanaya aniga qasaaraya ama qofka kale uu qasaaraya aniga guuleysanaya ama labadeeda waanu qasaarayna labadeeda waan isla baabaayna magaas isla ma wada noolaanayna qodobka shanaad ee looga baahan yahay qofka saameynta leh waxtarka leh wax soo saarka ah wuxuu ku leeyahay seek first to understand to be understood isku day marka hore inaad fahanto ta loogu talagalay ama lagaaga baahan yahay dhegeysato isku day marka hore inaad dhegeysato inta aadnan go'aan gaarin inta aan qof xukumin inta aad action samayn isku day marka hore inaad dhegeysato sababtoo inta badan dadka waxay isku dhageystaan laba qof markay wada hadlayaan inta badan waxay isku dhageystaan qof markuu hadlayo qof kale wuxuu ka fikiraya wuxuu ugu jawaabi lahaa isma dhegeysanayaan qodobka lixaad ee looga baahan qofka saameynta leh wuxuu ku leeyahay waa synergize taasi macnaheedu waxa weeyaan iskaashi taasi macnaheedu waxay wada shaqeyn dadka la wada shaqeyn karto qodobka ugu dambeeya oo ah looga baahan yahay waxyaalaha looga baahan qofka saameynta leh waxa weeyaan the sharper of the soul taasi macnaheedu waxa weeyaan qodobkan waa qodob cajiib ah bani aadamku sidaan ogsoonahay mar walba wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo dib u cusboonaysiin renewal inuu sameeyo wuxuu u baahan yahay horumarin wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan inuu akhriyo wuxuu u baahan yahay balance noloshiisa inuu balance gareeyo sidoo qoraagu wuxuu leeyahay waa inaad sameyso wax la dhaho meditation yoga waa inaad sameyso spiritual laakiin لأن عندنا في الصلاة إلهي وحي نسيي وينوغو talagalay صلاة taa qofku sameynaysa sababta qofku wuxuu u baahan yahay energy
inuu kasoo qaato noloshiisa لأن صلى الله عليه وسلم حسمين جري كان يحكي في المسجد أتي كان وحو آدي جري مقالة دي بديدة قضبك مركا وحنو كسونا هاي وحنو كاكوبنا هاي يعني جر physical psychological و spiritual يعني الروح دو وحي أباهانتاي waxay u baahan tahay dib u cusboonaysiin energy ay u baahan tahay inay qaadato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته